kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada channelkeena xigashada wararka. Fadlan haddaad nagu cusub tahay subscribe noo saar sidoo kalena gambaraalka furo si aad u ogaato muuqaalada iyo warbixinada halkan aan idiin soo gudbino. CC Camera Turki oo soo bandhigtay qaraxii Ex-Control Afgooye ee Muqdisho ka dhacay toddobaadkii hore, qaabkii uu dhacay iyo ciddii ka dambeysay. Mas'uuliyiin u hadashay dowladda Muqdisho iyo dowladda Turkiga oo macluumaad badan soo bandhigay, sida warbixinta fiidiyowga ku wada aragtaan. Waa xog muhiim ah oo ku aadan qaraxii ka dhacay toddobaadkii la soo dhaafay magaalada madaxda Soomaaliya Muqdisho. Daawo xogta oo dhammaystiran eebbe ummadda ha ka hayo fidna wadayaasha ee daawasho wacan. laakiin hadda inaan la laynin oo aan ka maaragta maka la gelinin oo ciidanka dalka aan loo ogolaa inuu maka galo maxaa keenay? wuxuu leeyahay niman mu'miniina iyo dumar mu'minaad ah oo jooga maka oo idin garanaynin oo laga yaabo haddaan ka gashaa inaad dib gaarsiisaan darteed ayaa laydinkaga joojiyey. saas macnaheedu yahay gaaladii maka deganayd oo dhibka badnayd oo tiro badan ahayd waxaa lagu badbaadiyey dad yar oo muslimiina darteed ku dhex jiray ay ku badbaadeen. maantana maxaa dhacaysa? maantana waxaa dhacaysa haday yihiin gaaladaba gaala maba misal hadda turkida oo hadda muslimiin wey, laakiin laba nin bay ahaayeen ciidankooda meequu ahaa hadda muslimiin aska soomaaliyeeda askaba soomaal inay gaalo ahaayeen meeqaa dhibata muslimiina. marka nimankaani niman cagsi u shaqaynaya weeye, cagsiga u shaqaynayaan. muslimiin badan bay laynayaan ayaga oo dad ay gaalo ku sheegaan oo iyo raadsanay. nabiga sala allahu alayhi wasallam ilaahay amarkiisa isagoo maaragtay gaalo badan u jeeda oo laga gargaran yahay ayaa gaaladii fakatay oo la daayey ayadoo muslimiin yar oo tiro yar ah. hay-adda ururinta khasaaraha nafeed ee colaadaha dunida ee lagu magacaabo Armed Conflict Location and Event Data ACLED waxay galka baarista u sheegtay in tan iyo sanadkii 2015 dadka rayidka ah ee lagu dilay qaraxyada, afduubyada iyo weerarada kale ee ururka Al-Shabaab ee lagu bartilmaameedsada rayidka ay ku dhinteen ku dhowaad 3,000 oo qof. halka laga soo bilaabo sanadkii 2010 ilaa haatan dadka rayidka ah ee ku dhintay weerarada Al-Shabaab ay dhan yihiin 4,340 qof. cisbitaalada Muqdisho waxaa la geeyaa dadka ku dhinta iyo kuwa ku dhaawacma weerarada rasaasta iyo qaraxyada ah ee ka dhaca magaalada Muqdisho iyo agagaarkeeda. agaasimaha cisbitaalka Madiina Dr. Maxamed Yuusuf ayaan weydiiyey dadka ku dhaawacmay rasaasta iyo qaraxyada ee la geeyay cisbitaalka Madiina oo ah kan ugu weyn ee qabta dhaawacyada iyo dhimashada laga soo bilaabo markii ay dagaalada xooggan ka bilowdeen magaalada Muqdisho sanadkii 2007. xilligaasi oo ay bilowdeen dagaaladii u dhaxeeyay ciidamada Itoobiya ee taageerayay dawladdii ku meel gaarka ahayd ee xilligaasi jirtay iyo ciidamadii isugu jiray muqaawamada iyo Al-Shabaab. dhaawacyada anaga aan jirnay waqtigaas ilaa maanta waxay kor u dhaafayaan 54,000 oo qof oo dhaawac waa isbitaal Madiina kaliya. marka dhaawacyadaasi maxay ka yimaadeen? dhaawacyada marka aan kala saarno anigu ma sheegayo dhaawacyo ka yimid midiyo inkastoo ay dhaawac yihiin, laakiin waxaan ka hadlayaa dhaawacyada ka imaaday hub dadka oo maxay ahayd qoryo oo ah qarax. intaas wey qarax oo haddana noocyo kale ah roogyo la isku toostuuray ahay muddooyinkii hore qaraxyo inta baawar laga soo buuxiyey marka dambe meelo inta la dhigo la qarxinayay oo yani khasaaro weyn keenayay iyo dhaawacyo marka ugu dambeysana baabuurta la isugu dugunayay iyo xabado toos la isugu tuurayay oo dadka la isku leynayay maaragtay. marka intaas kaliya haddii aan ka hadalno illegal wounded waxay imaanaysaa 54,000. waayo waxaad ii sheegtaa marka muddadaas dadka dhintay ama cisbitaalka ku dhintaan ama meyd ahaan loo keenay ee ay ku soo dhaceen xabad ama qarax ama wax hub la xiriira. waxa waaye meydka waa badan yahay, aad u badan yahay. adiga waxaa xisaabtaa 100 dhaawaca haddii la keeno in 20 ay ku jirto oo meydana la keenayo isbitaalka. cisbitaal kale oo la geeyo dadka ku dhaawacma iyo kuwa ku dhinta weerarada loo adeegsado rasaasta iyo qaraxyada waa cisbitaalka Daarushifa. waxaana uu galka baarista u sheegay in tan iyo sanadkii 2004 ilaa 2019 la geeyay cisbitaalka daddan 17,412 qof oo dhaawac ah, kuwaasi oo 8,603 qof ay yihiin bulshada rayidka ah, halka muddadaasna ay cisbitaalku diiwaan geliyeen dad ku dhow 300 oo qof oo dhimasho ah. waxayga xasuusinaa dhegaystayaal in shaqada bani'aadminimo ee cisbitaaladani ay hayaan awgeed
aanu galka baaristu weydiinin su-aasha ku saabsan inay cid gaar ah u saaraan mas-uuliyadda dilka iyo dhaawaca soo gaaraya dadka rayidka ah. waxa ugu dhimashada badan ee muqdisho ka dhacay muddada ka badan 10 sano ee magaaladu ay wehelka u noqotay qaraxyada waxa uu ahaa qaraxii Zoobe oo guddiga gurmadku ay hore u sheegeen inay ku dhinteen 587 qof. hase yeeshee markii ugu horreysay agaasimaha cisbitaalka Madiina Dr. Maxamed Yuusuf waxa uu galka baarista u sheegay tiro ka badan inta la shaaciyay inay diiwaan geliyeen oo ku dhimatay qaraxii Zoobe. dhibaatada dhacday ilaa 600 oo gaarmiiska iyo 30 midnimada Soomaaliya ma soo marin. inta dhibaato ay geystay iyo daawarka oo lahayd qaraxaasi jiro wax lagu mashaqo karo oo dhammeeyay. ilaahay mar dambe loo fasiro qaabkaas oo kale. aad iyo aad binaadamku badii waxay Soomaali badii imisa ku dhimataa tiri imisa ku wada dhinteen imisa ku dhimataa anaga 230 iyo laba loo keenay oo meeya markii dambana waxaan loo soo daray adiga 16 kale subaxii waxa waa loo yimid adiga waa la wada qaaday midkaasi fiiskool bulshada lagu duuyo waxay ahaayeen dhuxul ana ku soo doona qaarkood. laakiin guddigii taakulaynta oo diiwaangelinta sameeyay Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo madaxda ka ahaa markay isku wada geeyeen waxay dhaheen dadka ku dhintay qarax waxay ahaayeen 587 qof. anaga taas waa anaga waxaa noo kalkulaysan ilaa 630 qof oo ku dhimatay qaraxii Zoobe, 100 qof oo ku dhimatay qaraxii Hargaha iyo Saamaha, ku dhowaad 90 qof oo ku dhimatay qaraxii Ex Control, 70 wariye oo lagu dilay badankooda magaalada Muqdisho, 10 qof oo culimo ah oo lagu khaarijiyay waddanka, 10 bulshada rayidka ah oo ay ku jiraan dhakhaatiir oo ku dhimatay rasaasta iyo qaraxyada Muqdisho. intuba waxay ka mid yihiin dadka rayidka ah ee lagu bartilmaameedsanayo